waddanka Masar oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay ka taagnaayeen dhibaatooyin kala duwan oo u dhexeeya ciidamada militariga ee gacanta ku haya xukunka waddanka Masar iyo shacabka ka soo horjeeda inqilaabkaas oo taageersan xukuumaddii hore ee Maxamed al-Mursi oo isagoo inqilaab militari lagaga tuuray xukunkaas. maanta oo jimcaha taxaalufka ka soo horjeeda militariga oo iskaashanaya oo maanta ku ballamay goobaha waaweyn ay ku dhigayaan mudaharadayaasha, taasoo keentay in ciidamada Masar ay sortaagaan goobahaas aysan nacirigelin, inkastoo shacabka diidan nidaamkaas ay qaybo ka mid ah qasab ku galeen. dhanka kale xisbiyada qaar ka mid ah oo ugu horreeya xisbiga al-Nuur oo isagu diiday inuu ku biiro mudaharadayaashaas, sheegana inaysan la mowqif ahayn mudaharaadkaasna aysan samaynayn. akhwaan muslimiinka iyo xulufadooda ayaa ballan qaaday maanta oo jimcaha inay isugu imaanayaan ama ay isugu soo baxayaan goobahaas, wadayaana mudaharaadkaas ilaa maalinta 6 Oktoobar oo ah maalinta ciidanka Masar dabaaldegooda. ay sheegeen akhwaan muslimiinku inaysan joojinayn dabaaldegaas, ayna ku sheegeen inay ka soo horjeedaan inqilaabkii loo geystay hogaamiyahoodii Maxamed al-Mursi.